السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد افتي ميديا برودكشن فضلا هدي عاد كعصب تاي channel كان سبسكرايب سار notification bell كتابو سي عاد انو قطة مر والبا داوضه اوه هريو او فيرسادو موقالة عن صور ديقنا برتين يوتيوب كا موقال كان محاول تلقى لنا هو هذا النوع dhibkii xalay ka dhacay magaalada Mandheera oo khaasatan suuqa jaadka ama seelada jaadka sida loo yaqaano oo dab xoogan oo qasaare badan geystay oo ka dhacay xalay maqribkii dabkaas oo runtii sida la sheegay baabiyay hanti badan oo ay lahaayeen dad masaakiin ah kadib markii dabka xalay uu kacay waxaa dhacday in dadkii macnaha ay isku diyaan in dadka dabkaas ay damiyaan si qasaare badan oo san u geersanin oo ina gacan weyn ay sugayeen dawladda countiga si ay u keento dabdamiyaasho balse maysan dhicin oo dawladda countiga maysan ka soo falcelinin dabkaas oo dadka qasaarada u geystay ilaa ay haddana lama oga sababta dabkaas ka dambeysay mana jirto cid ka hadashay ha ahaadan dawladda countiga misna dawladda dhexe ha ahaadeeno cid ka hadashay ama mas'uul ma jiro oo ka hadlay arintaas oo xalay magaaladaas ka dhacday marka la fiiriyo runtii waa wax aad loogu xumaado in dad masaakiin ay meesha ku hanta beelaan dadkii madaxda ay soo doortaan ay samarna ka hadlin arintaas waa wax runtii aad loogu xumaado runtii waxa la rabaa madaxdu waxa loo doortay sidoodaba mar walba inay garab istaagaan dadkii shacabka ah hadii dhibaato ay qabsato inay mar walba garab istaagaan oo mar walba ay macnaha garabkooda ahaadaan wixii wax laga qaban karo sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qabtaan laakiin waxa foolxumo ah in falkii xalay dhacay ilaa iyo hadda 24 saac laga soo wareegay aysan jirin cid madax ah oo ka hadashay falkaas foolxun sida la sheegay waxa meeshaas ku hanta beelay dad masaakiin oo isku jira maamooyin halkaas ka raadsanayay qutulyoomkooda oo runtii qutulyoomkaas meesha ay ka helaan ku korsanay ilmo aad bay waxaan u badan tahay maamo yar oo macna iska taakoolaya in wixii meeshii ay ku aasatay hadii dab uu ka qabsado waa wax aad loo xumaado anaga waxaan leenahay maamooyinkaas wax qeyr qabo oo wax qeyr qab Ilaahay in ku bedelo mid kale lama oga sababta dabkaas ka dambeysay ilaa ay hadda dawladda countigana wax baaritaan oo ay sameysay malahan baaritaan iska dhaafay hadal hatta qof ka hadlay malahan MCA ha ahaado mas'uul kale ha ahaado county governor ha ahaado al rooba xildhibaanka deegaanka ahaado mas'uul kale oo county ka tirsan ahaado mas'uul kale dawladda dhexe ka tirsan ahaado dadkii mas'uuliyiinta ahaa oo magaalada sababta ay hadli waayeen dabkaas qasaaraha geystay maxay tahay runtii markii koowaadna ma aha meeshan siyaasada qaadka ay gubanayso sanadihii la soo dhaafay dhamaalo 2016 2017 ilaa hadda ay gubatay markii saddexaad 2019 intaas oo dhan runtii dadka qaar waxay u eedeynayeen in falkan sidiisaba ay ka dambayso dad dawladda county ka tirsan waxa warbixin ay ugu soo gaaray in shantii sano hore oo la soo dhaafay cali door countiga cusubnay oo al rooba la soo doortay in macnaha shakhsiyaad ka tirsan dawladda countiga ay macnaha iibsadeen dhulkaas oo la rabay in dadka halkaas ku ganacsanaya maamooyinka u badan in laga barakiciyo laakiin maysan dhicin dadka macnaha jaadka meesha ku gata xoogaa waa dad awood yar leh oo lacag isku beersan karo lacag bay isku beersadeen waxay qabsadeen lawyer bay qabsadeen kadib dhulkii way qofkii gadan rabay oo loogu barakicin rabay dacwo bay la qabsadeen ilaa iyo hadda dacwadoodu way socotaa maysan dhamaanin hadii dib aan ku celiyo sanadka 2018 waxa dhacday halkaas in dawladda countiga ay baaq u dirtay dalka halkaas ku qanacsanayo sida uu dhaqsiyaha badan in iskiga baxaan ayagana kulli dadkii suuqi ku ganacsanay way ka falceliyeen oo ay dhaheen annaga halkan kama baxayno waxa dhacday marka dawladda countiga in ay u cagab jugleysay dad siirada jaadka ka soo horjooday oo macnaha meesha report kale yiraahdo daashta kul lahay maamooyinka iska masaakiina
oo halkaas ku iibsanayay qudaar iyo maqaayadooyin iyo daashada jaad lagu gadahay dawladda countiga ay burburisay ayadoo dadkii wax macnaha awoonin wax macnaha baaqi aan la siinin oo halkaas iskii guur aan la dhihin ayaa macnaha meesha looga yimaaday burbur xoog badan baa loo geystay ilaa haddana maamooyinkaas wax raali ahaada dhaha ma jiraan wax magdhow oo la siiyay dawladda countiga ay siisan ma jiraan runtii markii la weeyay dawladda countiga maxaa dadka masaakiinta sidaan loo yeelay waxay macnaha ay macnaha ku andacootay in dawladda countiga ay rabto in bilicda magaalada ay dib u soo celiso maadaama halkaas oo daashtaha laga gubay ama daashtaha laga burburiyay ay ku yeeshay halka wadada garoonka ay ka soo baxayso magaalada soo galeysay kadib wafdiga magaalada imaadaya qaybiis kala duwan si magaalada bilicd u wanaagsan ay macnaha ay ugu muuqato ayaa daashtahaas loo burburiyay kadib markii saas la yeelay Sirobot agtiisa waxa fariin xoogan loo diray dadka siirada jaadka qaadka ku iibsada oo la dheysay warqsiyaha badan halka laga guro laakiin dadkii way ka madax adeegeen ilaa haddana marka falalka marka la fiiriyo runtii waxa loo maleynaa in dawladda countiga sideeda ay ka dambayso falkan oo dadkan la rabo maadaama ay madax adeegeen oo la rabo in si macnaha foolxun lagu barakeeyo waxaan dawladda countiga u sheegay dadka mas'uuliyiinta waxay mas'uuliyad in ka saaran tahay dadkaas masaakiinta oo shacabka oo layna haysin dadkaas masaakiinta oo shacabka waa dad idinkii kursiga maanta fuushin dadkii soo saaray way halkaas runtii marka la fiiriyo xilliga campaign-ki waa meesha kaliya oo dadka ay ku campaign gareeyeen dadka madaxda saan yeelana masna aamusan waa halkii ay kuraada ay dadku ugu codsanayeen haddii maanta kuraada meesha aad ku codsanaysid daraad aad kuraada maanta heshay dadkii sida ogaanta ku yeelanay oo gurbaanta ku tumay oo gawaarida ku fuulay oo habeen maalin ku qaylinay haddii maanta hantidooda aad si beerdara ah haddii loo gubay hatta aadan ka celinaynin haddii hantidooda la baabiinahay aadan ka hadlaynin maxaa meeshan kugu doortay kursiga leensi soo dadkan masaakiinta shan leeyahay soo mas'uuliyiin kama saar haddii idinka mas'uuliyiinta hay aadan ka hadlin dadka dhibka haysto yaa ka hadlayo oo maqan dadka masaakiinta oo maalkaas yar haystay oo waxba kala daashtahaas yar iskaga ganacsanay si macnaha qutulyoonka ilmahooda ay u raadsadaan haddii laga burburiyo dawladda maxay dadka ay siinaysaa runtii magaalada bilicdeeda in la soo celiyo waa wax wanaagsan oo magaalada inay bilic quraxsanaan lahaato waa wax aad u wanaagsan dadka dhamaal u fiican laakiin hab iyo nidaam من بلعد مجال لو سوء عليه أيات شرطه هدي دت كان وأركت ماشى إنه فول حنتي أو مشروع كلو ونعكسنا تكون بدليسد دتك والله تجا ولا وعي كليا مجال بلعد دت قف جديدة مالهن دتك والله بندقة كدب وحطوا الصمين إنسان كلا أو يكون بدشتان وحدا يسحل كاس عن إنسان مية عن ينسي ماشى المجال تحتيه رواية بلا قرحان بان aan kaniseena guri wanaagsan baa laga dhisayaa waa meel dadweyne uu leeyahay fadlan halkaas ay dhisin u guuro dadka marka war waa maqlayeen waxaan ku sameeyay inta waa ku xunta inta ku soo guur waa wax wanaagsan oo la maqlay waay laakiin meel kuma siinayo dhul kuma siinayo aad dhisitid halkaan xoog baan kaaga kicinayaa runtii waxaas wax marnaba la qaadana maahan waxaan u maleynaa siilada jaadka runtii marka la feeriyo dadka ka ganacsado boqolkiiba 90 waa maamooyinkaas oo macnaha ku korsado ilmahooda oo macnaha waxbarashada ilmahooda halkaas lacagta ugu bixin laayeen halkaas ka soo saar waan ognay dawladda county in ay siinsiin baasiga si sax ah aysan u qaybin oo ilmaha waxbarasho aysan ka bixinin haddii ilmaha waxbarasho aadan ka bixinin maamooyinka u dadaalayay oo macnaha lacagta qutulyoomka oo ilmahooda ama fiisku u baxsan lahayn meesha ka soo saar lahayn halkaas aad ka gubtid maamadaas masaakiinta maandaaska laga gubi oo ilmahooda wax cunto aysan haysanin adigina aadan ka warqabin ilmahani bari school fees laga rabo adiga countiga macnaha dawladda countigana ama dadka mas'uuliyiinta aysan ilmahaas fees aysan ka bixinaynin yaa ilmahaas u maqan cunugaas bari schoolka waa laga soo fiijinaa school ma aadayo kadib daroogo barana haddana dawladda countiga ayuu ku noqon doonaa mid laf cunto gashaa macna jaad uu barnaya dadku buu dhibaateynaya bulshada marka falkaas asaaskiisa marka la fiiriyo waxaan dusha u saareynaa dhammaan wixii dhibaato halkaas ka yimaado dawladda countiga runtii aniga horta aad baan ugu xumaaday
markii 24 saac ay ka soo wareegtay falkaas markuu dhacay aanan arkin cid ka hadashay cid mas'uul oo ka hadashay falkaas markaa arkay wallahi bilaa aad baan u xumaaday waxaa runtii maanta idaacada laga soo deeyay idaacadaha halkaas maanta tagay oo dadkii khasaarada halkaas ay ku geystay soo wareystay maamo kamid ah maamooyinkaas oo sidii idaacada ay sheegaysa ahayd 86 jir oo meesha ku ganacsanaysay runtii markaan dhageysto codkeeda iyo sida ay u ooynahayso aad baan anigan u qiirooday fadlan codkaas adiga inaad soo dhageysto waa jeclahay adiga daawanahayo si aad ila aragtid dhibka halkaas ka jiro muuqaalkaas aan soo daawano codkaas aan dib isku soo laabano ganacsatada saylada jaadka ee bartamaha magaalada Mandheera ayaa xisaabinaya qasaarihii ka soo gaaray dabkii xooganaa ee xalay aagaasi ka kacay Abdi Bilow Guuli oo kamid ah hooyinka sayladaasi ku ganacsanay ayaa sheegtay in dabka ay ku weyday dukaan yar oo ay halkaasi ku lahayd kadib markii oo dhulka la sibmay Abdi oo 86 sano jir ah oo warbaahinta la hadlaysay يا هذا الذي ذو حكمتها. صدق دوكا مسمى فيلنا دونها كبيت حتى حبا موجة جتوكا قوني يا مجاني كتوكا ما هو نكوشا البصبا نكوشا في تيوتا إلى نبانغو دوكا يوتا حتى أكونا كيت موجة نتوكا أيكو دوكا أليكو بالي أكونا كيت نبانغا بندي لعب حقول حقولتي تتوكل يوتا سيدات استيقو سيجارة runtii maamadaas hadalka ay ku hadashay waa dareemi kartiin maamiska maskiina uu gubatay lacagteedii hantideeda meesha ay gelisay sida ay sheegtay majaani ay ama caleyn ay ka keentay meeshaas oo ay rabtay inay galato sagaar ay meesha ku dhex gadanaysay wixii dhan ay ka gubteen maantana aysan jirin cid u naxayso cid macnaha maalkaas u soo celinaysa maamada aysan jirin cid raal haw maamo dhaxda aysan jirin runtii waa wax aad iyo aad laga xumaado aad iyo aad wax laga xumaado waxaan dawladda county ugu baaqayay mas'uuliyiinta dhammaan in dadkaas sida uu dhaqsiyaha badan hadii aad tihiin mas'uul oo dantiisa garanayo oo shacabkiisa ka naxayo handaa tahay sida uu dhaqsiyaha badan ha looga falceliyo arintan sida uu dhaqsiyaha badan dadkaas masaakiinta oo meesha wax kuwa ku maalbeelay in sida uu dhaqsiyaha badan maalkooda wixii loo tara kar loo celiyo حتى هدي آدم مال compensation أما آدم أصمين كرين رال هذا الكاس آد هدين بس أما واقعنا هاي فالكاس يحكدم بيه وسوق بنينا أنت سبت هدين والله بالله ما عمله سحمرنا إنسون أكسنا وساحة دونت آد بدو ما سنتين داوشة المقال كان مرنا كما عمستون إن دتك مساكين تسان الله سوقه وحاول لو كنت نزيد كواسو جبتين درها لو كنت ونزيت يعني قف في سنين معمولين كود داشتوا اللي بربري ولا عامسي لكن أمد القانون دون مردم بإن دولة كونتيجا عدد كمساكين تو مجرد كنول إن أي دباتيان أنا رالي مرنا برالي كمان نقولين مرك دتك بالشدة حمو باقي مرول بإن أي مدوان دتك مساكين العاوية وحي قرب لسكسين كرول قرب لسكسيو عاد بعد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا channel كان سبسكرايب صار وشير قري أصحاب هذا وحي فكرة أما وحي معناه قانا أما وحي سؤال أما وحي برنامج سؤال جعسة أنا كسر هذا الكومنت من نرى كسبسن فضلا برت كومنت هاسا نوراف عاد بعد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله